aniga oo ku hadlaya magaca aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana gudanaya waajibaadkayga ku cad qodobka 7 ee xiroosaadka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan halkan ku cadeynayaa inuu madaxweynuhu ku dhaqaaqay tallaabo halis gelinaysa jiritaanka dastuuriga ee hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya isagoo si ula kac ah u sameeyay xadgudubyada soo socda hor istaagid xilgudashada baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaas oo u xil saaran dib u eegista ansixinta wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka iyo qabashada afti dadweyne oo si kama dambaysa loogu ansixiyo dastuurka ku meel gaarka dastuurka dalka madaxweynuhu wuxuu tallaabadaas ku balal maray habraaca wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ee ku qeexan cutubka 15aad ee dastuurka ku meel gaarka wax ka beddelid qodobo dastuuri ahna waa hawl xeerdejin kamana mid aha awoodaha uu dastuurku u igmaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 3 madaxweynuhu ku xadgudbay kala soocidda awoodaha dawladeed ee xeerdejinta fulinta garsoorka sida ku cad qodobka 3 ee dastuurka ku meel gaarka farqadiisa 4 ee dastuurka madaxweynuhu wuxuu jabiyay waajibaadka dastuuriga ee ku cad qodobka 87 kaasoo xeerinaya in madaxweynuhu gudanayo waajibaadkiisa si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka isla markaana uu yahay ilaaliyaha mabaadi'da aasaasiga ee dastuurka ay ka mid tahay kala soocidda saddexda awoodood ee dawladda sidaa daraaddeed xeerka uu madaxweynuhu soo saaray wuxuu baalmarsan yahay dastuurka ku meel gaarka ah mana laha wax raad sharci ah go-aan kasta oo ku saabsan maareynta iyo ansixinta dib u eegista dastuurka waxaa si gaar ah ugu xil saaran labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida ku cad qodobka 63aad tirsigiisa a iyo qodobka 71aad dastuurka ku meel gaarka iyo habraaca dastuuriga ah ee ku qeexan cutubka 15aad ee dastuurka ku meel gaarka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan isleeyahay dalku wuxuu u baahan yahay sharciga in la raaco haddii sharci la raaci waayo wax jiraya ma jiro ma aha kanoo keliya arrintan oo keliya ma aha qodobada fara badan oo kale ayaa jira aad iyo aad baad u mahadsantihiin